shirkadda Dahabshiil Group ayaa waxay ka qayb qaadatay bandhigga toddobaadka hal-abuurka dunida oo Hargeysa lagu qabtay iyadoona gacan ka siisay sidii uu qabsoomi lahaa bandhiggaasi hay'adda Shaqadoon waxaana sidaasi ka sheegay munaasabadda lagu daafurayay bandhiggaasi Maxamed Axmed Liibaan oo ka tirsan shirkadda Dahabshiil Group. mashaariicda gaarka ah ee Dahabshiil Group shirkadaheeda kala duwan ay ka shaqeeyaan ee dhalinyarada lagu maalgeliyo ama laga shaqeeyo Dahabshiil Bank oo Dahabshiil Bank uu toos u maalgeliyay oo kala shaqeeyay shirkadda hay'adda Shaqadoon maalgelinta data maanta ku jirno oo indirectly u caawinaysa shaqo abuurka dhalinyarada meel siinaysa ay ku shaqeeyaan meel siinaysa ay ku kulmaan meel siinaysa ay fikradahooda ku soo bandhigaan dhalinyaradu waa taayaro cusub bay u yihiin shirkadaha ay ka shaqeeyaan sida muuqata hadda shirkadaha Dahabshiil sanad walba shaqaalaha la qaadanayo boqolkiiba 80 ama wax ka badan waxay noqdaan dhalinyaro. waxaan u mahadcelinayaa shirkadda Dahabshiil oo runtii akademiga marka laga hadlayo xagga maalgelinta dhalinyarada shirkadii ugu horeysay albaabada u furtay dhalinyarada tababarnay. Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi madaxa xiriirka bulshada ee shirkadda Somtel oo isna aanu kula kulannay carwo ay shirkadda Dahabshiil ku soo bandhigaysay adeegyadeeda oo bandhigaasi qayb ka ahayd waxa uu sheegay in muddada uu socdo bandhigani ay bixin doonaan adeegyo muhiim ah isagoo sheegay in markasta shirkadda Dahabshiil Group ay diyaar u tahay dhiirigelinta dhalinyarada. ka Dahabshiil Group ahaan waxaanu ka soo qayb galnay maanta waa toddobaadkan lagu dhiirigelinayo hal-abuurka iyo ganacsiga dhalinyarada oo runtii u baahan in mar walba la garab istaago. anaguna ka Dahabshiil Group ahaan waxaanu runtii ka qayb qaadanay hawshan iyo barnaamijkan oo aanu taageero weyn iyo isgarab taagba u muujinay si aanu dhalinyarada bilaa camalka iyo inta wax baratay ee doonaysay inay hal-abuur sameeyaan si ay shaqooyin u abuuraan inaanu ka qayb galno. runtii marka shaqo la abuuro waxa ka faa'iideysanaya dad badan oo kala duwan oo bulshada qaybeeda kala duwan hal qof hadduu meel ka shaqeeyo waxa laga yaabaa inaan wax badan soo kordhin laakiin marka hal qof oo dhalinyaro loo abuuro ganacsi cusub ama hal abuur cusub oo aan dalka hore uga jirin iyo waxay keenaysaa in bulshada qaybeeda kala duwan runtii ay ka faa'iideystaan. Dahabshiil Group guud ahaan taas ka qayb qaadanaysay aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa cid kasta hawshan ka soo qayb qaadatay iyo shirkadihii ka qayb galay ee kala duwan. hawshan insha Allah waxaan rajaynaynaa inay wax weyn ka tari doonto bulshada iyo shaqo la'aanta waddanka jirtay baasan waa mid ay noogu talagalnay inaynu ku dhiirigelino gaar ahaan dhalinyarada oo xuduudda ugu ballaaran ee dalka oo runtii aynu ognahay shaqo la'aan dalka jirta. ka Dahabshiil Group ahaan iyo ka Somtel ahaan runtii hawshan si lixaad baan nooga qayb galnay. maanta waxa kale oo Somtel ay bixinaysay amba ay sameeynaysay in hawshan ay live amba adduunyada oo dhan ay u baahayso oo dalka dibadiisa iyo meel kasta runtii laga daawanayo barnaamijkan maanta quruxda badan ee bilaabmay. Khadar Cabdiraxmaan Cabdilaahi waxa kale oo uu sheegay in shirkadda Dahabshiil Group ay qayb ka tahay abaalmarin la siin doono qofka ku guuleysta tartan loo qabanayo inta bandhiggaasi socdo 20 dhalinyaro oo hal-abuur ganacsi la yimid. maalmaha soo socdana waxa runtii tartami doona bal kala saari doona dhalinyaradii ku guuleysatay barnaamijkan oo qaar ka mid ah ay Dahabshiil Group maalgelinayso qaarna ay shirkado kale maalgelinayaan. runtii Dahabshiil Group intan oo kaliya kuma koobna waxa jirta adeegyo badan oo dhinaca dhalinyarada dhiirigelinaya oo bixiyo Dahabshiil Bank oo bixiyo Micro Dahab. Waa Idris Bershiya, Telefishinka Universal, Hargeysa.